Xildhibaanada haweenka ee ku jira Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa waxa uga furmay kulan aqoon isweydaarsi ah kaasoo muddo 2 maalmood socon doona. Aqoon isweydaarsigan muddada 2 maalmood ee uu socon doono ay ka qaybgalayaashu waxay kaga doodi doonaan xoojinta iyo dhiirigelinta ka qaybgalka haweenka ee dhinaca sharci dejinta iyo isdhaafsiga doodaha. Waxaan aqoon isweydaarsigan furtay kusimaha guddoomiyaha Golaha Shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Sacdiye Yaasiin Samatar oo ka qaybgalayaasha kula dardaarantay inay ka faa'iideystaan aqoon isweydaarsigan muddada uu socon doono. Sidoo kalena waxay u mahadcelisay macadka ISA oo aqoon isweydaarsigan soo qabanqaabiyay. Training-kan maanta waxaan uga mahadnaqaynaa hay'adda soo diyaarisay. Ujeedadana waa xoojin iyo dhiirigelinta ka qaybgalka haweenka siyaasiyiinta ah ayaa matashaan idinkoo baarlamaankii ah. Dhiirigelinta sida uga soo qayb gasheenna sharci dejin iyo doodaha sida la isku dhaafsado waxaa ka faa'iideysanaysaan waxyaalo badan maadaama ay jiraan gabdho xildhibaanaha oo cusub iyo horumarinta si ma aragtay gabdhaha innaga waxaynu metelnaa bulshadii weyntii oo dhan innagoo macnaha gabdhaha xildhibaanada cusub waxaa jirta doodo badan kama aynu soo qayb galin baarlamaanka wax badan ma uusan furnayn marka maanta fursad baa haysataan iyo berri oo aad ka faa'iideysan doontaan sidii ma aragtay doodaha looga qayb gali lahaa bulshada sida wax ugu gudbin lahayn. Marka waa program aad iyo aad u fiican. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa hay'adda soo diyaarisay oo maanta iyo berri seminaarkan inoo furaysa. Marka idinkana waxaan idin leeyahay ka soo qaybgal wanaagsan insha Allah biidmillaahi kariim kuwii ka soo qayb gala oo nacam ka faa'iideysta inay noqdaan. Hay'adda soo diyaarisayna aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa labadan beri iyo ka badanba inay ma aragtay programkan ay inoo sii wadi doonto. Waxyaalo badan oo waxa jira markii waqtigii hore aan cusbayn mararka qaarkood ma aanu heli jirin program noocan oo kala ah. Nacam sida loo doodo sidaan looga bixin ma aragtay topic markaa socda. Marka insha Allah biidmillaahi kariim mar labaad iyo mar saddexaadna hay'addan waa uga mahadcelinayaa. Ka qaybgalayaasha kulankan aqoon isweydaarsiga oo ah xildhibaanada haweenka ee ku jira Golaha Shacabka ee Baarlamaanka dalka ayaa muddada uu socon doono waxyaabaha ay kaga doodi doonaan waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka dimuqraadiyadda ku saleysan iyo sida loo jiheeyo doodaha maadaama ay ka tirsan yihiin baarlamaanka dalka. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta Golaha Shacabka, Muqdisho.